faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay duleedka deegaanka Xindheere. dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba maleeshiya beelad waayeel soo dhaafay hooyooyin iyo carruurtooda iskaga dilay qaybo ka mid ah gobolka Mudug iyo Galgaduud. inta la xaqiijiyay dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay laba ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen oo dhammaantoodba dhinacyadii halkaas ku dagaalamayay. dagaalkan ayaa daba socday maleeshiya hubaysan oo xalay haweeney 70 jir ah iyo carruurteeda ku dilay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. xaalad kacsanana ayaa laga soo warinaya duleedka deegaanka Xindheere oo ay maanta mar kale isku farasaareen laba maleeshiya beelad oo maalmihii ugu dambeeyayba halkaas isku horfadhiyay. dadka deegaanka ayaa soo warinaya in cabsi xooggan ay dareemayaan maadaama ay suurtagal tahay in dagaalkan uu ku fido deegaano kale oo nabdoon. ilaa haatan ma jirto cid ku baxday isla markaana kala dhex gashay labada maleeshiya beelad ee dagaalka adag ku dhex marayo duleedka deegaanka Xindheere. sidoo kale ilaa haatan ma jirto wax war ah ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan xiisadan dagaal ee ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah gobolka Mudug kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiya beelad oo walaalo ah oo halkaas wada degaa. maalmihii ugu dambeeyay ayaa deegaano ka kala tirsan Mudug iyo Galgaduud waxaa ka kala dhacayay dhacdooyin si weyn looga anfariiray kadib markii deegaanadaasi lagu dilay hooyooyin iyo carruurtooda. waxaana dhacdooyinkaasi ay hadalhayn xooggan ka dhaliyeen dhammaanba deegaanada maamulka Galmudug. laamaha amniga maamul goboleedka Galmudug ayaana iminka wada baaritaano ay ku baadigoobayaan sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaadkii xalay dilka u geystay hooyada 70 jirka iyo carruurteeda.